السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجكي dhalinyarada oo maanta xiisa gaar ah waxa martin noogu ah walaalkeen Khalid Laki soo dhaw waa dhawahay walaal qaali aad u mahadsantahay Khalid Laki adigoo mahadsan maanta waa sharaf bay nootay inaad mutaqana casuumaadnadii ka soo qayb gasho waxaad noo sheegtaa taariikhdaada kooban runaantii horta taariikhdaydu iska badan yihiin waxna wax yaraantayde waxna waxay oo waxa way intaan weynaaday oo aqli yeeshay oo yani aan wanaaggeega iyo kikaleega balse alxamdulillah yaraantaydu waxa ku soo barbaaray meel dhaawajiya oo ku soo waxbartay saa u taqaaniin dugsi hoose iyo dugsi sare intana Kenya waxa laga dhahaa primary and secondary marka alxamdulillah noloshayda si wanaagsan aan ku soo qaatay waa mahadsan tahay Khalid Laki maxaad nooga sheegi kartaa ciyaalnimadaadii ama caruurnimadaadii caruurnimadeedii wallaahi horta nin dhalinyaro oo aan iska ahay oo yaraanteedii oo dhalinyaro asxaab aan yahay horta waxaan ahay nin oo dhib badan oo yani dhagax tuur guri dhagax lagu tuurayo waxyaalahaas la aan ka dambeyn jiray yaraanteyda marka laakiin haddaan alxamdulillah for everything because waa nin weynaado oo aqli yeeshay noqday marka waa sidaas nin dhagax tuur badan ahaan jiray ma sha Allah mahadsanid su'aasha kale ku weydiinayna waxay tahay TikTok gormeed bilowday TikTok waxa bilaaway 2020 term 3 aan bilaaway already hadda waxa lagu jiraa umaleynaa 2021 aan lagu jiraa filaa marka waqtigaas ida furtay okay su'aasha labadan ku weydiinay waxay tahay TikTok maxaad soo markii kuugu horeysay waxyaabaha aad soo gelisay ugu horeeyay ma sheegi kartaa TikTok runaantii horta social media sideeda waa aniga kama bilaabin TikTok waxa ka bilaabay YouTube kaas oo marginal waxa lahaan jirtay gabar magaceeda la oo aad ugu qaali marna hooyadii oo la xabiibo inta ka salaamaa TikTok YouTube ka bilaabay YouTube marka aan arkay inuu yani hore iyo wadana TikTok ta bilaabay video gaan soo gelin waxa team aan noqonay team 007 waxaad u furatay TikTok macaanima mise waa arrimo kale oo dhalinyarnimo ah horta runaantii TikTok uma furinin inaan maanta magac ka raadiyo because horta dhalinyarada Nairobi joogta dhan waxa waaye waa dhamaantood waa reer TikTok kulli aniga waxa uu furtay maadaama TikTok yani amaanta inay dadka ka bartaan bal dhinaca YouTube adigana siyaad marka saas daradeed aan u furtay oo asxaab inaan inta ka yeesho aan hadhow dhinaca xaq u soo wareejista saas awgeed la aan furtay TikTok hadduu jiri lahayn maxaad qaban lahayd TikTok hadduu jiri lahayn runaantii horta waxaan ahay nin arday waqtigan la joogno hadda waxbarashada waa bog laakiin inta ka horeyso waxaan niideed ku jirtay inaan yani jaamacadda intaas akhristo marka haday maanta TikTok jiri lahayn jaamacadda rab inaan akhristo mahadsanid haddii laga codsado inaad iska dhileed garayso TikTok sidee dareemi lahayd ma culays buu kugu yahay bas waad la qabsatay oo mataqaanay dhigtay ku noqotay horta waxna waa wax balwad waxna waxaan balwad adig kugu heen runaantii nin maanta yeelay maahan adiga 100 qof oo kugu xiran 100 yani intaas oo dad kugu xiran yihiin hada maanta lagu dhaha kaar runaantii waxa aad u xanuun badan tahay laakiin ana ahaantayda Khalid way ugu yaraada runaantii marka because waa waqtiyan siiye dad badan anigu xiran mahadsanid intaad ku jirtay shaqadan TikTok oo aad caanka ku tahay waxyaabaha kugu yaabka badnaa oo aad kala kulanto TikTok intaad dhex socotay iyo marabin horta inaan sheego laakiin nin aan aad aan saaxiib u nahay oo waxa macna lahayn aan isku gafnay oo waxa way yani horta social media sideeda waxa way horta saaxiib lagu yahay marka waxa way ni kan ugu yaabka badnaa waxa way heblow aanu i jare adigana jar taas horta aad aan yaab igu noqotay marka waa sidaas midda kale aan ku weydiinayna waxay tahay maxaad dhibsataa oo aad inta badan ku aragtaa TikTok horta waxyaalo waa iska foolxun yihiin because aniga naftankeyga waa horta comment inuu reebi doonaan inaan fiicanahay inaan wanaagsanahay balse waqti xadirkan la joogo horta waxa waaye waxaas ay adeegin kuma dhigi karo yani ma daawani karo because TikTok waa aragtay markaas aan wax u dab inaa yani aad daawanayso soo marka waxyaalaha xun
okay intii aad TikTok kusoo jirtay dad noocee ayaad ka baratay dad xun dad wanaagsan TikTok naftinkeeda horta waxa waaye dadna waa dad xun dadna waa dad wanaagsan way kala baxaan dadka balse waxa waaye dadka isku mid maahan laakiin inta wanaagsana iga badananay ما شاء الله midda kale aan ku weydiinayna waxay tahay inta TikTok ku jirtay ama mataqaana aad ku jirtay aaladan waxyaabaha aad uga bedelan tahay ama aad uga duwan tahay dhalinyarada kale oo adiga caanka aad ku tahay oo ku goonida ah qaaska video horta ani oo jilin mudo video oo waxaan duwaa oo kaliya oo filter marka waan la isticmaalaa taas iyada waxba ugu mudumni badanaa markaan inkastoo reexmar maanta aan nahayn oo Nairobi aan ku sugnahay dhalinyarada badanaa waxay dubtaan filterkan caadiga dubtaan marka aniga marka ahantayda wax oo hadda aniga ugu duwan aan ku dhigi kara malahan because meel aan wax lagu Nairobi aragtaa oo maleyna meel wax lagu duubo malahan iyadana cariiri marka qofka du talent leeyahay xitaa talentigiis meel uu ku soo bixi malahan marka oo sidaas mahadsanid yaad ku dayataa markii la joogo dhanka caanimada ama social media horta sida social media dad badan ku jiro laakiin ani waxa ku dawdeedaa hal fanaankaas oo maadaama fanaankii reer TikTok-na maahan reer TikTok-na wuu yahay laakiin waa fanaan marka waa dayaxtal nur shirnaanti waa nin aad iyo aad u taageero inta ka salaamaa isaga xaaskiisa maanta dayacni mustaqbal ay yeelato يعني مرودا أساس عمل ويلاشو أيان مرو لي ونيديس يعني كان كده بدين لها يسقوا markii laga soo tago TikTok laga soo baxo TikTok banaankiisa noloshaada caadiga waa sidee wallahi horta kuma dhigi karo waa wanaagsanahay because noloshaydu wallahi horta way iska adag tahay nolol marna way adagtay marna way say kugu soo marto wajirteen qof waliba uu soo maray nolol yaani fiican in nolol wanaagsan adiga hadda ila fadhiyo nolol adeeg badan waa soo martay marka laakiin waqtigan la joogo alxamdulillah for everything waa noloshayda aad iyo aad u wanaagsantay maxaad ka qoomamaysaa oo aad mataqaana aad xasuusataa markii ay kugu soo dhacaan oo kale aad ka qoomamaysaa waxyaalo waqtiga luminaya horta on badana iska ilaaliyo waxa waaye Nairobi sidoo horta waa aragtay waa tii aan horeyna kugu soo sheegay aan ku dhahay qof walba oo maanta talent leh talentigiisa wuxuu soo bixin karin dan iyo duruuf waayo meeshii meel wax lagu duuban kara maahan waa meel iska kale wixina YouTube ma aan waa TikTok waqtiga aan outin aado qofka waqtiga luminayo inaan waxaan duubtaa meeshu yimaado kan waqtiga luminayo garabkayga taagan ayaan kaasan horta badan iska ilaaliyaa inaan waqtigayga aan fiirsado intaas lee waa mahadsantahay Khalid laki shaqadan TikTok aad ku jirto ma ku faraxsan tahay mise waa dan unba ku geysay horta runaantii waxaan ku faraxsanayn ma gali lahayn oo agtana lama gali lahayn balse horta waa ku faraxsanahay balse inta iga dambayso waxaan rajeyn lahaa inay yani ay soo egin ay dhinaca alla ka cabsiga ay yani soo eegaan marka ay yani ku dadaalaan meeshan TikTok la aalada TikTok tan waa meel saqjaan qeyrkan waa lagu faafiyaa xumaantan waa lagu faafiyaa marka dad qeyr ku faafinaynin waxaan kula talinahay qofka TikTok ta iyo faraha bulshada sida uu soo galay social media saa u taqaaninbo horta sida wadaad wax qeyr aad ku faafinaynin inaad yani cagta la soo galin runaanta waa kula talinaa waxna qeyr waay yani wax rabaayada wax iska sahlan waay laakiin dhinaca TikTok aad iyo aad horta saqjaanimada u badan tahay marka waxa ku dhilaadaa wax qeyr iyo alla ka cabsiga aad soo gelinaynin marka yani inaad yani aad faraha la soo galin maxaad higsanaysaa mustaqbalkaaga dhow mustaqbalkayga runaantii waxaan jeclaan lahaa nin meel iska soo bixiyo waayo dee nin walba oo maanta dunida joogo wuxuu rabaa mustaqbal intaba inaa maanta guursato oo reer yeelato ilmo ciyaal dhasho waalidka dambe because inta aragtaa loo soo waxbaraay waalidkaada wax u qabato inta maanta danta yar oo tabarta yar maxaad jeclaan lahayd ama ku farxad geliyo inaad maqasho oo wanaagsan waxa waay runaantii horta nin waxa ahay oo rajinimada ku soo koray oo weligiisna hooyadiis arkin
maanta because nin hooyadiis ay ku mulraacdaahay hooyaday weligay ma arkin balse maanta hadaa la dhihi lahay waxaan ugu jeclaan lahaa in la yidhaha iisoo hor istaajiyo hooyaday macaan inaan arko ayaan aad iyo aad u jeclaan lahay hadday macquul gal tahay inkastoo ay suurtoobeen. su-aasha kalean ku weydiinaya waxay tahay intaad kusoo dhex jirtay baraha bulshada ama tiktoka aad caanka ku tahay videoga kugu daawashada badnaa oo aad u jeclaatay ama aad caan kusoo noqotay ama aad laguu soo bumbuuniyey ma noo sheegi kartaa? run ahaantii haa way jirtaa. adiga kuma dhihi karo 2 bilood 3 bilood kuma dhihi karo laakiin bilka hore video aan soo geliyay ay daawatay 2M videogaas yani aan aad iyo aad oo magacayga kor u qaaday waayo markaan magaalka maraayo markaan dhalinyarada ku jiro videoga ugu yani igu daawashada badnaa 2 milyan ay daawatay marka waa videogaas isaga videoga asaga waxa ku jiray adigoo mataqaanay suunka furnayo marka arintaas maxaa kugu kalifay mise maxaad ula jeeday? horta runaantii videogaas kuma soo kicin kuma soo toosin amal inaan yani videogaas amal aan duubo waqtiga aan meesha joogo xitaa amin maqribaan duuwe waqtiga maqrib gaawad idoo aan duubo videogaas ismana dhaynin 2M aad daawanayso mise saas oo loo buunaa marka dan adi talent aan la imaaday oo niidid aan kala imaaday leeyahay talentan ma dhigi karo waa una shaxmay balse adiga waa on dhankeygan kala imaaday fikradeyda. videogaas waxaa ka soo muuqatay gabar marka gabadhaas xiriir noocay ayaa kala dhaxeeyay mise waxaad si dijiseen oo program asla ogeedeen waxa? runaantii gabadhaas oo walaashay inta ka salaama magaceeda waxa la Anush waa gabar aad aad ugu qaal ah oo marna walaashay marna saaxiibada nolosha dhaan dadka marna adii dadkii dhow laakiin xiriirnaga ma dhaxaynin outin la isku raacnay videogaas la iska soo jilnay oo si romantic amal aan yani aan adii amathaleyn romantic sida laba qof oo maanta oo yani oo isqabaan misane xiriir ka dhaxeeyo dadkana waxay dhahaan xiriir idinka dhaxeeyo laakiin xiriirnaga ma dhaxeeyo gabadhaas waa gabar aad aad oo yani maanta dad igu dhow oo walaashay marka xiriirnaga ma dhaxeeyo. Khaalidow markaan ku weydiino ama mataqaanaa aan soo galno noloshaada qaaska ah horta ma guursatay? run ahaantii anigoo runta waxay tahay aan ku sheegayo ma guursan balse waa isku dayay inaan guursado 2020 bishii 6aad markay ahayd aan isku dayay inaan guursado aad iyo aad horta waa jirtaa oo malaynaa dunidan qabiil gabaraan cabaar sheekaysanayni inta ka salaamay walaashii Mustaaq Ahmed waxay joogtaa UK waa ku salaam 114 runaantii gabadhaas laba qof oo isjecelaayeen balse waqtigii waayana kala geey because ma oran karo had inta kama wada sheegi karo balse waa waalidkan isku khindiiday kule waa ogtaa umaleynaa anigana kuma dhihi karo cidaasaan ka dhashay iyadana cidaasay ka dhalatay kuma dhihi karo marka sidoo horta waa labada waalidaan isku khindiideen siba waalidkeeda. su-aasha u dambaysa on kale ku weydiinaya waxay tahay goormeed rajaynaysaa inaad guursato? run ahaantii allah ogtaas iyada laakiin ana ahaantayda Khaalid qofkii maanta wax haystaa guursado kuma dhihi karo waqtigaas laakiin waa rajaynaa insha Allah hadduu Allah idmo laakiin waqtigaas kuma dhihi karo. intaas waxaa noogu eg barnaamijkeenii oo caawash noogu ahaa marti walaalkeen Khaalid Laki oo aad baraha bulshada caan ugu ah. intaan barnaamij la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa sidaas in nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.